culimada gobolka Togdheer oo habeennimadii xalay ahaa bayaan ku qabtay gudaha magaalada Burco ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay fuliyaan imaamada masaajidada iyo bulshada u soo cibaado doonata masaajidada inay fuliyaan awaamiirta ka hortagga xanuunka COVID-19 oo dib u soo laba kacleeyay bilihii u dambeeyay waxaana yiraahdeen baaqaygani wuxuu daaran yahay taageeridaanu taageerayno oo aanu garab istaagayno fariintii ka soo baxday xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka awqaafta iyo wasiirka caafimaadkuba ay akhriyeen ummadana la wadaageen taasoo nuxurkeedu ay ahayd sidii la isaga kaashan lahaa xanuunkan adduunyadii ka xanuujiyay dhibay sidii la isu hortaagi lahaa asbaabta lagaga hortagi karayo loo samayn lahaa xanuun kastoo ilaahay keenaa dawo uu leeyahay laakiin dadka maanta jooga intay og yihiin iyo aqoontoodu ay gaarsiisan tahay dawo way u la'yihiin sidaa daraaddeed waxa ay ku talinayaan qodobadaas ah ee lagu taliyay in la kala fogaado in nadaafadda lagu dadaalo in tallaalkan imika soo baxay la qaato marka intaaba culimmadu iyagoo dowrka iyo booska ay ummadda ku leeyihiin dareensan waxay ku talinayaan ama ay soo jeedinayaan oo ku wacyigelinayaan dadka in fariimaha xukuumadda ka soo baxay ee amarka ah ee dowladdu ay fartay in waxa weeyaan la yeelo oo meel kastoo la isugu yimaado hadday masaajid tahay hadday goobaha kale dad ku kulmaan ay yihiin suuqyada in la kala fogaado waxa kaloo aan ayidaya oo aan soo jeedinaya tujaarta iyo dadka ilaahay wax siiyey gudiyadan ama heer qaran ha noqoto ama gobolka Togdheer gudidan loo sameeyay ha noqotee in loo dhaganuglaado oo maanta kale waa maalintii aan waxba lala hadhi jirin runtii iyaduna amaan iyo bogaadin mudan maamulka gobolka Togdheer gaar ahaan gudoomiyaha Maxamed Diiriye runtii isaguna si dareen leh mar walba ugu taagan oo ugu heegan sida mujtamacan iyo gobolkan uu uga sabatibxin lahaa ama awoodiisa u qaadan lahaa waxa mujtamaca iyo bulshada reer Togdheer u soo jeedinaynaa in xanuunkan runtii uu yahay xanuun in muddo ah mujtamaca iyo caalamku la noolaa isla markaana ay muhiim iyo daruuri tahay in dadku baaqyada kala duwan iyo fariimaha kala duwan ee loo soo jeedinayo inay qaataan waxa xukuumadda iyo guud ahaan cid kastoo ay khuseysaba barsidii xanuunka laftarkiisa awoodda loo saari lahaa qaybaha kala duwan taas markaa culimadu ay dirayaan insha Allah waxaan aad iyo aad u boorinayaa waliba si gaar ah bulshada waxaad moodaa marar badan ama qaar kamid ah waxa ku badan khilaafka arintani ma aha arintii la isu khilaafi lahaa masaajidada haday tahay iyo hudheelada haday tahay iyo goobaha kale dadku isugu haday tahayba waa lagama maarmaan waana waajib sharci ah in la qaato wixii nafta bini'aadamka lagu ilaalinayo hala iskaashado haloo dhaganuglaado wacyigelinta la bixinayo si gaara dadka waaweyn iyo dadka danyarta ah in aad iyo aad looga warhayo siba talaalada waxaanu ka warhaynaa qadar yaroo kooban weeye waxa ilaa hadda dalka soo gaaray inta kalena in sidii culimada hore sheegtay la isugu tago kelmadda yadan oo culimadii gobolka Togdheer qayb kamida oo matalaysa culimadii kale ujeedaduna waxay tahay dadaalka gobolka ka socda iyo guud ahaanba qaranka ka socda ee la tacaalida xanuunka COVID-19 in insha Allah taala culimaduna kaalinta ay wadeen masaajidada khudabtii jumcada intana lagu sii xoojiyo oo dadkaanu ku wacyigelino xanuunkan sida la tilmaamay dawo male inta aynu ognahay tacaalid iyo kahortag buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuga toobad keenno wixii xun si aynu roobka ilaahay inoogu soo daayo si ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunada inooga qaado waa inaynu xagga ilaahay u cararno subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo xasuusinayaa dadka goobaha la isugu yimaada waa fara badan yihiin runtii waxa jira goobo aan warba laga haynin oo dadka jooga aan warba haynin oo turubka iyo dubnada iyo fiidiyoyada iyo goobaha qayraada iyo dhul badan oo xataa wacyiganiba laga yaabaa inaanu gaarin baa jira marka xukuumadda iyo culimada iyo cid kasta caafimaadka qolada ka shaqeysa cid kasta wacyigelin wada xataa qolyaha saxaafadda
in goobaha bal hore loogu maro tirada badan ee aan wacyigu aad u gaadhin iyo wacyigelinta dadku ay jeedinayaan iyadana aad iyo aad baan u soo jeedinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeenna ha dhaafo